عليكم saxaabta meel kasoo dunida ka joogtaan ku soo wada saakay iyo warbixinada weyn Kamal Dariga waxaan soo qaadan doonaa sheekooyin weyn oo ku saabsan Mundialka waxa weeyaan Messi iyo waxa laga leeyahay xalay sidii uu furay adag waa isceliyay moogta cabaar in yar buu isceliyay tababari Argentina baa kaaga daray koob cidiidaysa malaha ka war Argentinku waxa weeyaan Lionel iyo mataqaana Argentina waxa laga leeyahay saaki baan u eegi doonaa iyo dunida ku maadsanaysa waxaan eegi doonaa Lamine Yamal oo runtii taageerayaashiisa cusub ee Real Madrid farin u soo diray waxaan eegi doonaa sidoo kale akhbaaraadka ugu dambeeyay Kylian oo dhigay mucjisa aan weligeed hore loo dhigin iyo kale ibsigii baan u eegi doonaa asxaabtay subscribe-ka noo saara kuwa channel cusub ku jiray share laagta muskadirkan saxaabta kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina salaam saxaabta qaarkii baan eegi doonaa hooyaan aan wararka kala dambaysiino xoogaa saakay yaa 6 saac inuu noo soo gali doono baan maleynaya waa 12 iyo 20 daqiiqo maadaama warkii xalay aanu ku daahnay 8 saac soo galay xalay waa dawaal xamur ولا ما وريان كون بلغ من السنه بنوديغان لباتك kala bisha soo socotana hadana Premier League yadii koobkii baa bilaabanaya bariyaan ciyaara saaxiibtinimada iyo suuq ajandeen waa isgidi hadana Bruni san waad adiga ya wuxuu yiri ma taqaana Niyo Maxamed Odik maxad ka hadishay maalinta Transportin waxaan rinay anaga siyaasadda xogaa iska wareer mooyaane sportigeed warka ma dhamaado sport warkeeda ma dhamaado siyaasadda bariyaan siyaasadda akhri jira xataa marka qaar maalin warka wareera Shwambiyood oo bir dhaxal sunooleenay xaaladda Shwambiyood ayaa waxay ka taagan yihiin iska soo dheey maalin waxa taaganay ilaa hadda ma taqana yaani waa la soo fadhiyaa maalin waxa iska sheeganay macnaha yaani xaaladda siyaasadeed wadanka saas waaye lay taagnaani adiga macnaha xogaa update-koodu yaani news-koodu waa macnaha sporti marka loo babardhigo sportiga zaid waa maalinka abduuna dhamaana mawjida saaka xirme kala iibsi hadda galayna kala iibsitan ku jirno ciyaar saxibtinimo ku dhex jira meesha oo Lisforjana hadda Manchester oo maaloodu bilowgi waa laga baday Jam Match lagu bilaabay ma bilowdeen baa la wati Chelsea ay badisay okay horyaaladii ku baasmay horyaaladii tay socdaan jamliga kor furmaya ma khar war ma ka dhamaanayo ya marka alcumuum waar nimankii xalay waa laga qaaday koobka mucaarad xalay waxa waa gambarka ugu dambeyntii u toosay ya ugu dambeyntii waxay arkeen Messi oo koobka laga qaadayo laakiin waxay sidoo kale arkeen Lamine Yamal Botale oo runtii saacad ugu dambeeyay hadana fariin kale soo diray taageerayaasha Real Madrid taageerayaasha Yamal ee cusub odaga fariin buu idin soo diray waan idin warbaan idinkaga sheegi doonaa balan ku horeyno dhankan iyo Messi tababar Argentina wuxuu yiri Lionel Scaloni waxa weeyaan wuxuu Messi World Cup ka sameeyay ajaa'ibeed ma taas ma beenba sax bay yahay Messi wax ka taweyn baa galay ya mooyaane hada Messi maxaa Bruno soo gaara walaal dadkii dhanba wax ma hayaane meeshaas waa finalkii ugu zeerasana weligeed arkaysa weeyaan ee hal dhinac waa ya marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay waa greatest ever ayuu leeyahay runtii ee maqaar ku soo maray hal waxaad arkaysaa Messi inuu Bruniga macsalaameeniyo sidoo Messi uu ilmeeyay baad arkaysaa odag waa isceli waa fuur odaga orodaash lama celi kareed ya World Cup-ka intuu socday ba waxa mar dhacday taageerayaal oo maxaa ridaayay kubadda cagta ayaa waxa dhacday in mar la weydiiyo ya ma laga yaabaa macnaha Ronaldo intuu World Cup-kan mar socdo dad ba sharad iyo lacag badan ku kala qaatay World Cup-ka intuu socdo Ronaldo mar ma ooyi doona ya ayay dad badani lacag ku qaateen iyo waxay sheegeen in Ronaldo mar uu ooyi doono World Cup-kan kamida odayaashu marka wax weeyaan isma cili karaan Ronaldo isku celinay buu hore ka yiri Messi isku celinay isku adkeynay hal mar buu da yiri macna ya marka markuu haray maalin Ronaldo warbixinta marka hadda ku soo kor xasuusanaya odayaashu isma celi karaan wariga goodiyadu ya akhay ilmahan dhalinta yaraniyo ani shalay aan dhahayd adiga wariyo ninka Mike Tyson aku noqonina dhahay Yamal Spain ninka reer Barcelona ka buuxdo meesha war Mike Tyson aku noqonina mid YouTuber ah iyo Mike Tyson la isku diray sanad dhaxdaas ama Tyson baan watay marka waxa isleedahay cunugu maloodeey isleedahay cunugii odagii joogto daarka ka tumay ya marka anigu waa diidanaa anigu sidaba odayaasha shalay aan ka dardaarmay anigu waa ogaa Messi dardaarankiisa markuu dhahay walaalayaal macnaha xataa hadaan World Cup-kan caawa ku guuleysanin annaga 4 koob baan ku soo guuleysanay taariikh ayaan soo dhignay ay sawirkoodii xataa ay si horumarsadeen anu marka waan dareemay macnaha in oo macnaha oo yaani odaga balaayo ku soo socoto marka Yamal ba marka warku waxaan ku soo diray qodob qoraalku waxaan ku soo diray eray aan ku leeyahay MK oo Lamine Yamal kaga u digay
يا او ku yiri ha samayn yani odaga hadii la baduuqaya xataa caawa ha loo tartiibiyo lama tartiib inkastoo hal gool ay ciyaartu tahay laakiin waa la jijibiyey odaga tiimkiisa odaga kawaaley waxay matarayaan ilaahay abarkiis wala kuwaas dib dambe loo taageeras midayde meesdu maanta fariisto waa sida Portugal oo kale Portugal na haduu Ronaldo ka fariisto fiirsi ma laha dadka soo dhamaatay waxay u baahan yihiin in la qabsado si Madrid iyo Barcelona in la qabsado Barcelona way adkaatay in la qabsado Messi kalaan warar Barcelona Europe League ka dhacday Messi aan kadib ya Europe League Barcelona oo waqtiga ciyaaraysa waarad adiga Real Madridna Ronaldo aan maalmo babta lagu hayay ay wararsanayeen marka way adkayd dadka Ronaldo taageero dadka Messi taageero kadib markay ka kala tageen labadaas kooxood in la fiirsado way adkayd jil cusub hadda la qabsaday Spain Portugal iyo markay Argentina dib dambe in loo daawan doono malaynayo marka Messi oo inta ku soo xasuustay marka odagu way la marbo yiri xalay iska ooyi هذا إن بيهد حالي ميسي مصر صعود سيد أبدا تاعي ويعني والمهم وكسي درين له المهم وسيد يروبا يان قطر بيسين نقونا يان مركا إيرا إنه سحر مع رون ميسي نيمار رونالدو إنكستو ميسي هالكوكب وحتى ساب الرون بالكوكب لبودي ومدك الوحمة بهرين با مركا واحد أركيسا ملايين دولار أيال لغو قاتي سؤال شاهد كريستيانو رونالدو مأويي ميسي موسن أوين dadku isku khilaafeen muuqaalada sawirada kadib Portugal markii laga reebo koobka adduunka marka ugu dambeyntii qoli ayaa go'aamin Ronaldo uu ooyay taasoo sababtay malaayiin dollar in madkhana la isdhaafsado ka hor Portugal iyo Spain suuqyada sharadka ayaa waxay ku qiyaasayeen ku dhawaad 70% in Ronaldo ooyi doono macnaha intiisan ciyaartii baasmin oo Portugal iyo Spain ciyaarteedani waa wax la ogyahay inay iyagu badinayaan nimanka awood badnaa waraanima Bruno Gasmalis dadkii ciyaar xumada badnaa وريه وحاسنيو سيميوني جوزيه مورينيو رابي لهانيو جوجيناين داريو ورا انيغا سيميوني iyo waxaan ku gaay جوزيه مورينيو maqaarka culus hata waa joojinayn magaas waxaan iskulaani iyo adkaaya iska masaakiin yaqay siiski la soo dardaray ko maxay sheegayaan marka mid kale waa loo websiyay nimankan Ronaldo markii la yiri caaw Spain ku aada dad badan way si fahmayeen in la soo reebi doono ya ugu yaraan Portugal aba xooga roonaanshaha ku jirtay Argentina hada waa ugu xumaa taariikhda 60 sano ma dhicine nimanan bahal shita isku dayin ciyaarta 90 daqiiqo marka ka hor ciyaarta marka waxa lagu kasharatamay Spain iyo Portugal ka hor Ronaldo caaw ma ooyi doono mise ma ooyi doono ya kadib ciyaarta sharadkii la galay waxay bilaabeen marka sawiradii in la soo aruuriyo haye cawada ma ooyi mise ma ooyin ya qaar waxay dhaheen dhidid kaliya bay ahayd qaarna waxay dhaheen war waa ooyay kadib waxa la isku raacay warninku waa ooyay dhidid man u ahayn marka dadku waxay si saadaalinayeen marka Ronaldo in World Cup-ka uu ku ooyi doono marka hadii caaw Spain guul dara ka soo gaarto Ronaldo oo inta maceshan doona laha sidii baa dhacday Messi sidii baa ku dhacday isna ilinta waa shaki waayay marka alcumuum iskulan wuxuu leeyahay Messi wax badan buusmaan runtiyo laakiin manu dagaalamin ya Yamal ba u tagaya Messi ugu fadhiga ka kicinaya Messi iska fadhiya ayaa uu Yamal u tagaya odaga Messi istaagaya Yamal buu habsiinaya Argentina markaas waa Ronaldo iscelina oo kadib waa fur alcumuum Lionel Messi waxay ku leeyihiin warbaahintu waa good laakiin Spain ayaa cadeysana waxba laga qaban karin bay ku leeyihiin mid kale Messi qodiisu hadlay wuxuu yiri aad baan u niyajabsanahay taadi aad bay nooga fiicnaayeen waas waa Bruno Suqirid waa ari intaas yani dadka Soomaalida Bruno-ga taageer umba muran badan mooy adduunka Suqirid waa nina laga badiyay nina Brian la soo tumay nina Brian badina wala sida taagan yahay caag biyaal iska wata nayo sida isu dhaama hays oo minina Leo Simple way naga fiicnaayay aadan u niyajabsanahay uu leeyahay runtii marka alcumuum eri baa sida ku soo dhamaaday Scolani baa ka cal xumaysiinay arkoob cidii dawaal la waydiyaa Scolani intii uu socday shirka jaraa'id mar wax lagu weydiinay mustaqbalkiisa yuu yiri ilaa iyo waqti yar baan qaadanay kadib baan go'aanka gaaraya mustaqbalkayga buu la hadda ma hadlayo laakiin runtii wuxuu sheegay inuu aad u niyajabsan yahay una ilmeeyay Bruno لمس عيارتين وهي حتى ورياي حتى Bruno حتى ما اسكو دايدين اركوان كوان لي يا هذا المال ومر هذا علمي وحتى هدانا مال حتى الله بركي دفاعيدي دحدن ولka ku soo socdayna way dhaawacmeen isbaayadani jinwaadi ilaahay baa dadka u sii jibinayaba wariyaa khaycidi waa ku calxumeynayaan saakay alcumuum Brazil Italy uba labada wadan taariikhda waligood difaacday mundial cid kale lama arkin Argentina isku dayaysay 60 sano kadib inay sameeyso way sameey waayeen Argentina markan koray mar bay sameeyeen 60 iyo 90 hadana way sameey waayeen waxa isku dayday Brazil qudheeda way sameey wayse mar kale waxa isku dayday Faransiiska
khudooda way sameyn waayeen war waxaan lama samayn karo marka laba wadan baa weligood ahaan doona taariikhda kuwa difaacday koob adduunka yani si isku xig u qaaday waxay ahaan doonaan Italy iyo Brazil mid kale Argentina dhibkaysto waxay tahay ma jiro taariikhda wadan iska difaacday koobkan iska badaayay wadan labada koob inuu difaacdo raba laba qaarad kala duwan ku qaaday oo qaaradiis ahayn wada waxaan suurtagal ahayn Otamendi waxa la arkayaa isagoo Rodri iyo Laporte ku dhahaya war isbuuca dhan baad ooyin iyo qaylo garsoorka madax kaga garaacaysan ya aad u hadlaysan Spain marka ciyaartan ka hor ayaa garsooruhu la sii waaway adduunkana mar walba waxa macnaha yani ka soo horjeeday Argentina oo markasta waxa la nimankan banoon xumay ciyaaraan saan waaye qab waa la jira kan balow ay kano marka ciyaarta markay maadato Otamendi ragii City buu tagu xiri warni wuxuu iska aamusa garsoori ciyaar maskaxd bad la ciyaarteen waba kaayay caaw dhagta nagu haya isbuuc dhan baad ooynayseen qayli ka garsoorku qaylinayeen buuri marka Otamendi waa ku kacday oo dib Martinez inuu Martinez waa dadaalay tababar isma wuxuu mataqaana war haddaanu Martinez ahaan buu ciyaartan gooran kala bixineen buu magaalkeena iska galin waa sharcadaysan lahayn hada fiiri Spain waxa ay leeyihiin war Argentina qalad ma laha xallan ku sheegay Faransiiskii xoog weyn ma laga dhax baxay ka sartaan xataa soo gaari waayay Argentina qalad ma laha Argentina qaladkeeda waxay tahay fuliyay noqdeen banooni ciyaari waayeen oo xataa shoot laga waayay laakiin nimankaas wax ka taweyn baa galay oo Argentina Faransiiska adduunka maanta ku xoog badan ajaaba laga dhigay xataa 9 daqiiqo lagu garaacay wali waxa ka yaabinaya nimankan xoogooda goolhaya Spain Unai Simon wan iska nastay buu ahaa war entire World Cup ka socday koobkan adduunka dhan gabi ahaan socday Emiliano Unai Simon 10 save bis buu sameeyay war koobkan adduunka socday halka kaliya waxa la 12 save sameeyay goolhaya Argentina waxa suurtagal ah goolhaya dhan World Cup soo dirnay waxa badbaadiyay kaliya 10 ciyaarood World Cup 10 save ayuu sameeyay World Cup kana noo socda ka war marka waxa macquul ahayn nimankan awood aan xaqiiqii bay ahaayeen Toni Kroos ayaa ku maadsanayay wadanka Argentina wuxuu leeyahay footballka ayaa guuleystay caawa yani kawanleyda jabhada caawa meesh banoon kuma ciyaarin buu maqaarka cidda wadatay laakiin maqaarku marbuu iswaalaa haddaan arki lahaa 15 daqiiqo dambe oo Spain goal la leyn penalty lagu garaaci lahaa banoon saas uma shaqeeyde maqaarka marka qaar ma badiyo laakiin xal wuxuu footballka badiyo runtii oo waxa weey nimankii xogsatada hawaa laga badiyay midda kale waxa weeyaan Enzo Fernandez Rooney irag badan baa cambaareen waxay leeyihiin ninkaas waxa weey leeyahay runtii Rosso wuxuu qaatay xulkii dilay buu qaatay wuu leeyahay runtii marba hadaad ka arqabto waxay buuleynad istilaalayso Argentina sidoo waa bilaa discipline weligood bay sida soo ahayeen ciyaaryahanka ugu dambeeyay Argentina Rosso qaatay wuxuu ahaa 9kii kan hadda uu qaatay Argentina taariikhda waa wadanka ugu badan ee red card ugu badan qaatay final weeyaan waana 3 Rosso marka nimankan sababta aan ku dhahay Messi kadib fiirsi malaha dagaal iyo qabawac war Messi cidiisa ma cishtabe intan Rosso-yaash in qaadan markuu baradaas jaalaha ku wad qaadan waxaan yiri war Messi dadkiisa ma cishtamiya waa dareemayaan kulli inay wax ka qaadanayaan dhiigal isku kicina iyo waxaan nahay family aan nahay ka haabiya Rosso ugu badan marka yani taariikhda marka World Cup-ka 9kiina waa la qaatay 9diina waa la qaatay 2 Faransiiska laba Rosso qaatay finaalada ka war Desailly iyo Zidane haytinka qaatay Holland Fernandes iminka marka alcamuum laban Rosso waxay ka qaateen Argentina koobkii 9kii bay ka qaateen marka nimanka xadi maaha wadama iska waalan bay dagaalamay alcamuum waxa leeyahay runtii Messi World Cup kana waxa u diiday dabaalnimada iyo nacasnimada ku kacay ka Chelsea alcamuum waxay noqdeen nationkii ugu horeeyay bay noqdeen Argentina wadankii ugu horeeyay bay noqdeen aan hatta hal shoot target ka sameyn World Cup final bay noqdeen runtii halka 12 shoot target lagu tuuray yani nimanka Spain ay sameeyeen marka intaas waa Argentina iyo waxa ku saabsan bay ahayn Spain Champions League dunida ugu dambeyntii bracketkii sidan buu ku soo dhamaaday wadna ogeyd mar walbaba ninka inta ka yimaada koobka qaad hadii Champions League nin walba wadadiisa adkeed ka soo dhaxbaxay un baa koobkan qaadi kara Argentina wadada ku soo socotay wada jilcaneed bad sidii Arsenal wadada ku soo socotay ahayd laakiin wadadaas ku ka yimaaday PSG baa koobka Champions League qaaday intana wadadan wixii ka yimaaday baa qaaday mar walba waxaad arkaysaa marka ninkii wadada burburka soo maray un baa koobka guuleysan kara Argentina injilaac bay ahaayeen Trump waxaad arkaysaa anigoo iska tabinaya ciyaarta xalay oo muuqaalka si tabinaya yaa waxaan la mad qaran wareer ninkan Chelsea buu dhex galay oo laga dhex bixiyay abu kuwa nacaaw dhex gala ileen Trump ma yeelayo beri Ferran Torres ba uu magaalada qabsanay la dhihi doona ninka go'aamiye ciyaarta sawirka qabsan doona maya
waxaad arkaysaa Infantino ku dhahay madaxweyne xoogaa yar gees kaga soo baxaya qayb waa diiday Trump ugu yaraan dhinac gees yar u baxay dhinac buuna ka sii galay ninkan saxaafad in maanta dhan wada warkiisa aad u jecel yahay waa ka sawirkii dhinac buu kaga jiraa saakay laakiin ciyaartoyga Argentina Romero ayaa diiday inuu salaamo ninka la yiraahdo waa agmari Trump khamarjiyaal ciidan khamarjinimadaas aan baabiinaysaa khamarjinimii Bruno fiirsan kare wala Bruno boring kala fiirsan karaan ku yiri midda kale Trump wuxuu taagay ma la soo celi koobkan arjooga liri ma lagu soo celi kare Trump xalay markuu arkay Mareykanka sadka Washington mugta Bruno yani khaladaad fara badan way sameeyeen ciyaartoy way barbaareen garsoorayaal way celiyeen wax kasto jin ijaan waa sameeyeen wuxuu ku leeyahay marka ciyaarta dhamaatay oo koobka la dhiibay Infantino koobka waa in sida uu dhaqsiyaha badan waddanka ku soo celisaa la rabaa waa in mar kale amarti galiyaa la adima oo FIFA koob dambe ku keenaybo laakiin sharciga FIFA wuxuu qabaa US ka xaq uma laha World Cup dambe in lagu martigeliyo ilaa laga gaaro 2038 marka hore lagama celi karo waddan hadda lagu qabtayo taas waa taa alcumuum taariikhda World Cup ka Brazil 5 haysata Italy 4 haysata Germany 4 haysata Argentina 3 haysata France 2 haysata Spain iminku 2 ay soo galeen runtii waxa weeyaan World Cup waa ka 9 ka soo bilow ilaa 2026 sida lagu kala guuleystay runtii mid kale Farantigii si gooniyaal ciyaartooyga loo sii markay ciyaarta dhamaatay waa ka Rodri fartiisa ku jiro Farantigii World Cup ka ee laga soo minguriyay ciyaaraha MVL ka iyo NBA ga Rodri wuxuu noqday ciyaartoygii toddobaad ee isku qaaday Champions League World Cup Ballon d'Or ku dar Euro Beckenbauer Müller Zidane Rivaldo Ronaldinho Messi Rodri wuxuu dhan way sameeyeen kuwaasna Copa America ugu jira alxamuum ninkan wuxuu ahaa ninka tartanka ugu fiicnaa 2024 ayaa la siiyay Euro kadib waxa la siiyay World Cup ninka ugu fiicnaa 2026 la siiyay dad badan xislaan Messi baa la siin doonaa dad badan xislaan rag baa gool badan dhali tartankan Messi Mbappe la siin doonaa marka waxay leeyihiin taageerash mucaarad ku waxay leeyihiin taqana warniyo ninkan asaga maalin kasta xoolo ma la siinaa xoolo dadole ma cunay leey mucaaradka hadda Messi yaa lislaahay Mbappe yaa la siin doonaa xidig ugu fiican tartanka inkastoo Rodri uu ahaa udub dhexaadka dhan ay Spain koobkan ku qaadeen marka waxay leeyihiin kan asaga wax dadowle mudafa Ballon d'Orkii 2024 uu qaatay wuxuu ka soo kacay haddana Rodri inaba caadi ahayn baa la arkaya laakiin miyuu sii joogi doonaa taas baa isweydiin mudan nin socdo u muuqanaya waxaanu hadda Rodri qayb ka noqday ciyaartoy ku guuleystay Golden Ball Rodri iminku qaatay ki horeeyay Messi qaatay ki horeeyay Modric qaatay ki horeeyay Messi qaatay Furlan qaatay Zidane Oliver Kahn Ronaldo Romario Maradona Salvatore Paul Rossi intaana waxay ragii la siixid ugu fiican tartanka World Cup oo taariikhdo mid kale Lamine Yamal uu leeyahay runtii 19 sano jir waa kaga qalin jibiyay kubadda cagta xulalka Messi wuxuu u baahnaaday markuu 4 sano jir Messi wuxuu u baahnaa inuu koobka qaramada ku guuleysto kaliya u dhinaasi u qalin jibiyo qaramada ka dhina koobkeeda Cristiano Ronaldo qudhiisa qaramada u baahnaa inuu ku guuleysto laakiin Yamal 19 sano jir wuxuu ku qalin jibiyay qaramada koobka looga baahnaa Euro-na uu qaaday World Cup-na uu qaaday 19 sano jirnimo waranika u qabatay ka war hadda waxa laga qalin jibiyay kubadda cagta xulalka Saudi wuxuu la ma taqaana garoonka biis lisaga cunaa ka war tambari uu leeyahay runtii garoonka biis uu keentay u dulqaatay taageeraasha oo Yamalow u dulqaata taageeraasha cusub ee Lamine Yamal ka hadla oo mucaaradka ah wuxuu ku qalin jibiyay 19 sano jirnimo wax qaran ugu badhina koobka xulalka uu dhino waxa uu dhiman hal Champions League si gabi ahaan kubadda cagtu kaga qalin jibiyo marka la eego Ballon d'Or oo hadda qarka u saaran yahay in la siiyo World Cup waxa ka dhiman inuu ku darsado koobkan maxaa la yiraahday Champions League ciyaarta kadib maxaa la yiraahdaa taqaana marka ciyaarta dhamaatay waxa la yiraahdaa okay waan wada haystaa intaas Champions League baa ii dhiman inuu nambar ku qaado marka Botale taageeraashiisa ka mid noqotayna ku soo dhawaada waa ka ninkii xalay meesha ku shaquleeyo 18 sano jir ayaa Euro lagu qaaday 19 sano jirna World Cup baa lagu qaaday waa daa'irkii ugu yaraa ee labadaas koob ku guuleystay isagoo daa'iro marka waxa weeyaan Lamine waa waqtiga waa saacid ciyaartooygu barsha ka waran gooni isku baxsadeen waxay muujinayaan in leeyihiin Spain anaga nagu socdaan waana socod 2010 xataa saas baa la dhigi jiray fiirad ciyaartooyga Barcelona dhinac way Sumar waxay leeyihiin waa ka anagoo meeshan shidnay oo koobka qaadnay ilaa sawir gooni wada galeen Ferran Torres wuxuu yiri aad baa lee cambaariyay u leeyahay runtii waa u qalmay u leeyahay macna oo waqtiga isiyay waqti maalintan quruxda badan inaan World Cup ka go'aamiyo ninkan aad loo cambaariyay wara kan waa anfaca iska dirina adoo zeerle oo gool alinan haysan laakiin isku sii dirle adiga Coquerel wuxuu yiri hadda u fikira wuri ilaa wuxuu balan qaaday hadii koobka ku guuleysto laba inuu retire garoobayo oo ka fariisanay ciyaar xulka wuxuu ka dhaw arki doonaa kulay wuxuu ka hadlay tan tattoo ka hadlay ciyaar kor wuxuu yiri ma taqaana haddaan ku guuleysto yiri World Cup-ka
يعني وجيغا او معلنكا دليفونتي او اسبين ayaan kusoo sabaran doonaa buri tattoo ahaan jirkeyga marka meel fiican baan u raadinaya wule oo laga arki karo alcamutawata hadaan adno Mbappe wuxuu noqday baleerkii ugu horeeyay taariikhda ee 3 golden boot ama 3 gool dhalin ama 3 kab isku qaada hal season gudaheeda wuxuu soo qaaday La Liga wuxuu soo qaaday kii Champions League oo imika World Cup ku guuleystay ninka cimaamadiisa lama haysan karo kab weyn cidna ma sameeyay midaas saddexdaas kab in hal season la isku qaato waraanina ninka wasabtan ku dhaay ninka dhaliya fiican waqtiga mashina ma jira Benoniga World Cup kii hore 8 gool ku qaaday kana 10 ku qaaday waana ciyaaryahankii ugu horeeyay back gool dhalinta koobka adduunka u qaada yani laba World Cup isku xiga inkastoo laakiin tan loo tubisdeedii hal jeer uu ku guuleystay World Cup labadan jeer hadda uu ku guuleysanay gool dhalinta koobna uma raacayo taasna waa nasiib daro kale iibsiga biishi wali wuxuu bushgareynayaan yarka Diamond leeyahay ilaa hadda biishi Leipzig heshiis ma gaarin kooxo kalena tartanka way ku jiraan waraa kan isku sirina Liverpool baa kan ka daba ordan qiyaasa barkool arkiisana waa la eegaya Arsenal ina waa tii lagu garaac Rodgers garbay feerin doonaan New York inta la joogo falanqeeya ka ah Jurgen Klopp wuxuu xaqiijiyay inuu dhow yahay heshiiska uu Jarmalka tababar ugu noqonayo wuu xaqiijiyay ilaa iyo Nation League 2027 Euro 2028 World Cup 2030 inuu Klopp hogaamin doono Jarmalka ayaa la arkaya Romana West Ham ninkii Somerville ayayba hadda bushgareynayaan garnaajo kolba ka wareegteen nabadgelyo